بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال بإذن الله تعالى وحان هل كان إذن كسو قدبنا قصير أو كشيكي شيخ ليراهدو شيخ سعيد بن محمد القحطاني كم إذا دعاء سعودية شيخاسي وحا أو شيخي إن لكل من دكتورة أو ليراهدو عبد المحسن الأحمد oo ka shaqeeya dhakhtarka militariga ee magaalada Riyaad. Wuxuu yiri waxana loo keenay nin xanuunsanaya. Ninkaasi waxa uu qabay xanuun ah wadnaha oo halbowlayaasha wadnaha ka baxa qaar kamid ah ayaa xidhnaa. Markii uu ninkaasi noo yimi wuxuu yiri waxaan isku daynay qalliin inaan ku sameeyno. Qalliinkii baanu ku sameeynay waanu ku guul dareysanay. Qalliin labaad ayaanu ku sameeynay waanu ku guul dareysanay. maalma kadib ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu qadaray in kaliyihiisii kali kamidi ay hawlgab noqoto. kalidiiba iyana hawlgab noqotay. ilaahay wuxuu raaciyay tii kale beerkiiba hawlgab noqday. xanuuno isdaba joog ah ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ninkii ku riday. arrintii annagoo aad ula yaaban oo xaaladiisu ay khatar marayso ayuu maalin maalmaha kamida soo miirsaday. dabadeedna gacanta ayuu ii taagay. waan u imi wuxuu igu yiri lambarka intuu lambar ii qoray hebel baa la yiraahdaa la hadal oo ha ii yimaado dhakhtarka ha igu yimaado. wuxuu yiri dhakhtarkii baan ka baxay. dabadeedna taleefankii baan garaacay. assalaamu calaykum walaal ninka hebel la yiraahdaa saw adiga ma aha haa buu yiri. waxaan yiri dhakhtarka halkaasaan joogaa doctor kamid ah dhakhaatiirta halka ka shaqeysa ayaan ahay. waxaan nala joogaa nin xanuunsanaya oo hebel la yiraahdo. waxaanu ka codsanayaa inaad noo timaadid. wuxuu yiri ilaahay waxaan weydiisanayaa in uu adduun iyo aakhiraba ilaahay ku cadaabo. waxaan yiri subhanallah war maxad sida u leedahay qof muslima miyaanad ahayn. wuxuu yiri sheekhow ninkaasi wixii uu igu sameeyay waxba kama ogid. ninkaasi waxa igu qabsaday nin aanu jaar ahayn baa gurigii aan lahaay caruurtu ii deganayd igu qabsaday. markii aanu maxkamadda isla tagnay ninkani wuxuu ahaa markhaati beenaale markhaatigii u furay. 3 sanadood ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanayay in uu ilaahay isagoo dunida jooga dhammaan xubnihiisa oo dhan hawlgab ka dhigo. haddii aad doctor maanta igu soo hambalyeysay arrinta ilaahay baan ugu mahadnaqayaa ducadeedii ajiibay buu yiri. ninkii doctorka uu ooyay aad baan uga naxay. xaqiiqatan walaalayaal qisada caynkaasi waxay ina tusaysaa dulmiga iyo xaq darrada dadka loo geystaa khatarta ay leedahay. نبي صلى الله عليه وسلم حديث القدس وإلهي سبحانه وتعالى كورنا وحوها يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إلهي سبحانه وتعالى وحيد أدوم هيجيو وان إذن كحرمي نفط إذا وان كحرمي ظلمك إذن كان حرام بان إذن كردقي إيها إس ظلمينا. نبي صلى الله عليه وسلم حديث كي سلسلة الحديث الصحيحة كسبنا يا أبو هريرة وورنيي وحاو النبي صلى الله عليه وسلم تلمامي 3 دعوات مستجابات 3 بريو ولا أتشيبا أو لما ورستاغو دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. قفك والد كاهي وبدكيس هبارك وهبار ولا أتشيبا أو لاسمه ورتاغو. قفك مسافر كاهي لا ظلميانا دعوتي سوال أتشيبا. sidoo kale qofka dulmiga ka cabanayana dacwadiisa waa la ajiibaa. walaalayaal dulmigu waa khatar. nabigu sallallahu alayhi wasallam markii uu la dardaarmayay Muaad ibn Jabal waxa uu ku yiri Muaadow wattaqi da'wata al-madhlum fa innahu laysa baynahu wa bayna Allahi hijab. waxaad iska ilaalaysaa dacwada qofka la dulmiyay. ilaahay subhanahu wa ta'ala bariyada wax ka xijaabaya ma jiraane. walaalayaal biidnillahi ta'ala aynu iska ilaalino in aynu cid dulmi u geysano in sha Allah ta'ala dadka muslimiinta ana cadaalad aynu kula dhaqano. walaalahana waxaan ka codsanayaa si dulmiga iyo xaq darrada ummadeena ku dhex jira ay u baaba'aan in in sha Allah maqta'an fidiyaan oo dadka la sheer gareeyaan. wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.